dagaalamayaasha ururka al-shabaab ayaa isaga baxay deegaanka Moqokuri oo 13 sano ee la soo dhaafay ay ku sugnaayeen. ciidanka xoogga dalka ayaa ku sii dhawaanaya deegaankaas waxaana la sheegay inay taagan yihiin albaabada laga galo Moqokuri. ka bixista al-shabaab ayaa timid ee deegaanka kadib markii ciidamada ay waabarigii hore ee saakay ay u soo ruuqaansadeen deegaankan oo ah mid istiraatiiji ah. Moqokuri ayaa ka mid ah deegaanada ay al-shabaab ay ku sugnaayeen sanadihii la soo dhaafay, iyaga oo dadka deegaankana ay sheegeen in dagaalamayaasha al-shabaab halkaasi ay ku lahaayeen xarumo iyo saldhigyo waaweyn oo kooxda al-shabaab ay dadka ugu wici jireen. Moqokuri waxay ka mid noqonaysaa deegaano sanado badan ay ku sugnaayeen al-shabaab oo isaga baxay, waxaana ka bixistooda ay qayb ka noqonaysaa kacdoonka ka dhanka ah kooxdaas ee ka socda gobolka Hiiraan. al-shabaab ayaa maalmo gudahood lumiyay deegaanka Booco iyo deegaano hoos yimaada, waxaana hore looga saaray deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan oo sanado badan kooxda ay ku xididaysatay. ciidanka dowladda ayaa sidoo kale ku sii fidaya deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan oo hore ay ugu sugnaayeen al-shabaab. al-shabaab waxay luminayaan deegaano hor leh maalinba maalinta ka dambeysa, xilli la dareemayo in kooxda culays badan uu soo fuulay sida ay sheegaan dadka ka hadla arrimaha ammaanka. dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa shaacisay inay qayb ka qaateen dagaalka culus ee ka socda gobolka Hiiraan kaas oo lagula dagaalamaya al-shabaab. bayaan ka soo baxay taliska Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in 2 maalmood ka hor 18 bishan September ay dowladda Soomaaliya ka codsatay inay duqeeyaan al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka Abuuri oo hoos taga magaalada Buulaberde. Mareykanka wuxuu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay 27 xubnood oo al-shabaab ah, sida la xaqiijiyay, sidoo kalena aysan jirin wax soo gaaray dadka rayidka ah. ciidamada Mareykanka ayaa loo fasaxay inay fuliyaan weerar ay ku difaacayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa lagu yiri war ka soo baxay taliska Mareykanka qaaradda Afrika ee Africom. sidoo kale Mareykanka wuxuu qoray in dagaalka Hiiraan ay ciidanka Soomaaliya ay ka soo hoyeen guulo waaweyn, isla markaana iyagu doorkooda u ahaa duqeyn meelaha qaar si loo yareeyo khataraha ciidanka ay kala kulmi karaan kooxda. howlgalkan ayaa ah kii ugu ballaarnaa oo ciidanka Soomaaliya ay ka fuliyeen muddo 5 sano ah ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Africom. sidoo kale taliska Mareykanka ee Africom waxa uu qoraalkan uu ku ballan qaaday in aad looga taxadari doono waxyeelo soo gaarta dadka rayidka ah, iyaga oo la sheegay in la baacsanayo dagaalamayaasha al-shabaab si joogto ah. waxa uu Mareykanka uu tilmaamay in laga qabsaday deegaano badan. taliska ciidanka xoogga dalka ayaa shaaciyay in howlgallada ka socda gobolka Hiiraan lagu dilay 127 xubnood oo ka tirsan al-shabaab, isla markaana inta badan goobihii ay ku sugnaayeen laga qabsaday dagaalamayaasha kooxdaas. u doona Soomaali Suudanes Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. bartilmaameedka Soomaali Suudanes waa badqabka bulshadeena.